kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كلمة تحكوا السابسين يعني الليتها ووراقة أما وراقه لبقى فوراقي وحاسك وريساني ويا أنا بوضع شيء كيسي وأنا وخالد عبدي هل كان وصومالي ولا أكاديمي لا سعى وضع شيء كيسي قول ما يسلم حدا ma u baahnayd barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weyday chance aad ku tagto iskuul ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. الليتها قف كواد مركب حوري who wrote the letter to you who كما يا wrote the letter to you كوسا قرأ ورقة سؤال بودي بيحكوا who كما يا wrote كوسا قرأ the letter ورقة كوسا قرأ عديك to you عديك يا كوسا قرأ ورقة أيوري بيا يا شو حوري ميدان أباها يا wrote the letter ورقة إيسا قرأ to me أنا ورقة أباها يا إيسا قرأ وحنا إيسا قرأ وين مركي he so was أها on a business trip مرو كوتشي لسافر كان عسايو أباها ورقة إيسا قرأ my dad aabaha ayaa wrote the letter warqada ay soo qoray warqada waxaan u qoray waliba tumi aniga ayuu qoray waxaan u qoray wan waliba wuxuu qoray wan xilligii isagu was uu ahaa business trip mid ku jira safar ganacsi ayaan u qoray warqada su'aal kale ay weydiiyay did you keep the letter warqada ma xafidaa ma warqada ma ilaalisa did you keep ma ilaalisa the letter warqada ma xafidaa ma ilaalisa warqada ay weydiiyay yes ha waan xafidaa buuri yes ha waan xafidaa ay but waxaan dhigay waliba iyada waxaan dhigay warqada waxaan dhigay ina folder ama khaanad ayaan galiyay buuri yes ha ay but waxaan dhigay iyada ina folder khaanad ayaan galiyay waxay noqon kartaa khaanad caadi waxay noqon kartaa khaanad computer bay noqon kartaa ama su'aal kale ay weydiiyay what was the letter about maxay ahayd the letter about warqadu mid ku saabsan maxay ahayd ama warqadu maxay ku saabsaneed what was the letter about warqadu maxay ku saabsaneed b ayaa jawaab markaa warqadu waxay ku saabsaneed he told me wuxuu ii sheegayay he told me aniga wuxuu ii sheegayay about wax ku saabsan his new workplace meeshiisa cusub ama goobta shaqo uu ka shaqayn doono ee cusub he told me wuxuu ii sheegay about wax ku saabsan his new workplace goobta uu ka shaqeeyo cusub. Did you like ma jeceshahay writing qoritaanka letters waraaqaha or emails mise emailada ayaa jeceshahay I prefer waxaan doorbidaa buu writing qoritaanka paper letters waraaqaha lagu qoro warqadaha halkaas uu nagu joogo caalkeen maanta till next time assalamu alaykum arday baan ahayo uwaxii wadankan ahayo uwaxii wadankan